kulanti wacan asxaabta kusoo dhawaada goosgooska labaad ee laga soo bandhigay taxanaha caanka ee Herjaaye kaasoo xalqadiisii 27aad la sugayay in la daawado balse sabtida soo socota lama daawan doono. Waxaa si rasmi ah hadeer loo soo bandhigay goosgooska labaad ee taxanaha aadka loo jecel yahay Herjaaye, waana goosgoos xiiso leh, waana xalqada 27aad. goosgooskii labaad laga soo bandhigay goosgooskii koowaad waan idinla wadaagnay. xalqada 27aad goosgooskeeda labaad aad u xiiso badan ayuu ahaa, wuxuuna u gaar ahaa hogaamiyaasha mashruucan kuwaasoo jawi jacayl wadaagayeen, waana hogaamiyaasha mashruucan oo kale ah Miiraan iyo Rayaan. waxaan hal daqiiqa dhammaan ayuu soconaa goosgooska, waxaana kaliya lagugu tusaa hogaamiyaasha taxanaha Miiraan iyo Rayaan xilli Miiraan ku dhahay Rayaan ma garanaysaa rabitaanka wuxuu yahay, kadib wuxuu ku dhahaa xal walba adiga ii ah oo uu la jeedo midii qalbigayga ku xasili lahaa waa adiga. kadib Rayaan ayaa dhahayso waan kula joogayaa weligay, aniga haddii aan adiga kula jirin la-aanta maba jiri lahayn ayay leedahay, oo ula jeedo la-aanta ma noolaan karo. kadib Miiraan ayaa dhahaya waan ku jeclahay Rayaan, weliba si xad dhaaf ah. iyadana waxay ugu jawaabaysaa sidoo kale waan ku jeclahay, aad baana kuugu xiisa ayay leedahay, oo ila jeedin muddadii aan kala maqnayn oon kala xanaaqsanayn oo khilaaf iyo dadna soo dhex galeen, aad ayaan ugu xiisa ayay leedahay inaan dib u heshiino, waan ku xiisa ayay leedahay. isagana wuxuu ugu jawaabay sidoo kale aad ayaan kuugu xiisay. intaas ayaa lagu tusaa ama orah ahaan intaas ayaa goosgooska labaad lagu soo bandhigaya. waa goosgoos u gaar ah lamaanaha iyaga kaliyiin ayaana lagu tusaya, waxaana xiga muuqaalo jacayl oo ay wadaagayaan xilli ay isdhunkanayaan, habna isa siinayaan. waxaad moodaa kuwo sanado badan kala maqnaa oo kala xiiso aad isku xiisaha kalgacaylka ay muujinayaan, goosgooskan ku muujinaya markaad aragtid kuwo sanado badan kala maqnaa ayaad moodaa. waxaan sugnaaba waa xalqada 27aad iyo sabtida dambe. sabtidan soo socoto lama daawan doono xalqada 27aad sidaan hore idinku laga wadaagnaba, maadaama hal toddobaad ee jilayaasha oo dhan ay fasax qaadan doonaan, maadaama sanadka cusub ee 2020 uu soo dhow yahay. sida awgeed jilaa walba iyo qof walba oo shaqeynaya caalamka fasax ayuu galayaa. jilayaasha Turkiga dhammaan wax Turki ah ama taxane ah lama soo daan doono sida TV-yada sida la sheegay maalmo ka hor oon idinla wadaagnaba. marka waxay u badan tahay xalqada 27aad in la daawan doono sabtidan soo socota, sabtideeda kale in la daawan doono ay u badan tahay, balse waa macquul in sabtida soo socota xitaa la daawado, waa haddii wax isbedelaan oo arrin degdeg ay dhacdo. laakiin inta ugu badan ama 99% uma badna sabtida soo socota in la daawan doono xalqada 27aad ee taxanaha Herjaaye. qodobka labaad waxaan kaga hadlaynaa laadarada taxanaan Casiiza taariikh nololeedkeeda oo kooban ayaan kaga hadlaynaa. qodobka labaad magaceeda dhabta ah waa Aidal Axel, waxayna ku magac dheertahay ama caan ku noqotay hadeer waa Casiiza. waxay dhalatay 31 Oktoobar sanadii 1962, haatan waa 58 jir. xidigtan Aida Axel waxay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada Istanbul. Aida Axel oo loo yaqaan Casiiza waxay waxbarashadeedii ku dhamaysatay magaalada Istanbul, iyadoona sidoo kale qaabjiliin ka baratay. Casiiza waa atirisho filimada iyo taxanayaasha jisha, sidoo kalena waxay qayb ka tahay jilayaasha riwaayadaha masraxyada ku jiri jiray ayay qayb ka ahaan jirtay weligeedba. Casiiza diinta ay haysato waa Muslim, waana qof diinta Islaamka haysta, sidoo kalena inta badan waxay ku dadaashaa inay xijaabnaato oo is asturto, inkastoo marmarka qaar la arko iyadoo dhar aan si fiican asturneyn oo jirkeeda qaar ka mid a muuqanaya ay xiran tahay, marmarka qaar waa la arkaa. Casiiza waxay fanka kusoo biirtay iyadoo aad u yar, sanadii 1980 ayayna fanka kusoo biirtay, waxayna waqtigaas jirtay 18 sano. Casiiza waxay kasoo muuqatay taxanayaal aad u fara badan kuwaasoo qaarkood abaalmarino badan ay ku qaadatay, waana mid ka mid ah tirishooyinka fanka Turkiga kasoo jeedaan kuwooda abaalmarinada ugu badan qaateen. Casiiza haatan waxay qayb ka tahay taxanaha hirgale ee Herjaaye, iyadoona door muhiim ah ka ciyaaraysa, waxayna ku matalaysaa naag u aaraysa wiilkeedii la dilay balse qaab xanuun badan u aarsan doonto, waana door xumaan ah oo ay ku jirayso door xumaan ah, iyadoona taxanaan laadirad weyn ka ah, inkastoo dad kale oo door xumaan ah jilayaan ay ku jiraan. Casiiza waxay fanka ku jirtaa muddo 39 sano ah, iyadoona taxanayaal badan kasoo muuqatay, waxayna ku guuleysatay abaalmarino badan kuwaasoo ay ka mid yihiin 3 ka mid ah abaalmarinta atirishada ugu fiican fanka Turkiga oo 3 sano kala duwan ay ku guuleysatay.
intaas ayaan kaga bixinaa macluumaad ku saabsan iyo taariikhdii ku saabsan Casiiza laadarada taxanaha Herjaya. Macluumaad kooban ayaan kasoo bandhignay. Qodobka saddexaad waxaan kaga hadlaynaa tirishada caanka ay Raquel Bridson iyo nin hadda ka hor ceebeystay ama bilooyin ka hor ama sanadkan 2019 bilowgiisii. Qaybtii hore sanadka 2019 tirishada caanka Raquel Bridson ayaa hadalhayn weyn abuurtay kadib markii uu nin si xun u aflagaadeeyay iyadana ay jawaab kulul siisay in badanna ayaana laga wadwaday internetka. Sheekadan oo muddo ayaa lagu wadwaday orahdii ay Raquel Bridson ninkaas ugu jawaabtay iyo siduu isaga u aflagaadeeyay. Sidaan wada ognahay Raquel waa tirisho waqtigan ugu soo jiidashada badan dhanka koonfur Indiya, waa nin walbana damac gelinaysa 28 jirtan awood ballaaran ku yeelatay Bollywoodka iyo koonfurba. Haddaba dhacdadana siday u dhacday, maxay isku maageen ninkaas? Waxaa la sheegay Raquel Bridson inay soo ilowday dharkeedii hoose xilli ay gaari kasoo degaysay. Sawirro ayaana laga qabtay. Sawir-qaadayaashu mar walba daba taagayeen jilayaasha caanka. Dad badan ayaana arrinkan ka sheekeeyay in gabadhan labis hooseedkeedii soo ilowday, balse midaasi lama hubi karo. Qofka si fiican looma sii baari karo, balse kaamiristayaasha intay sawireen unbay caddeeyeen. Haddaba sawirradii laga qaaday ayaa internetka lagu faafiyay, balse nin ayaa Twitterkiisii ku fadeexaystay kadib markii uu soo qoray sida tan: Raquel Bridson, ma xishoonaysid miyaa? Oo xishood ma lihid miyaa? Maxaad u soo ilowday dharkaadii hoose oo u socota dhar hoose la'aan adigoo magaalada dhex soconaysa maxay tahay? Waase kuma ninka gaariga dhexdiisii kugu dhex isticmaalay? Ma xishootay aan dharka dhigatay, ayuu yiri ninkani isagoo si xun u aflagaadeeyay. Qoraal ahaan ayuu Twitterka sidaas kusoo qoray, wuxuuna yiri isagoo hadalkiisii sii wata: dharkii ayaad dhigatay, waxaadna gaariga dhexdiisii kusoo dhex ilowday dhar hooseedkaadii, balse waa kuma ninka gaariga dhexdiisa kugu dhex isticmaalay, ayuu yiri. Ma xishootay dharka dhigatay? Sidaas ayuu yiri. Raquel oo aad u xanaaqday markii ay akhrisatay ayaa sidan tan iyadana ugu soo jawaabtay: nin cilmi badan ayaa tahay, haddaad dumarka labiskooda qarsoon xitaa kala ogaan kartid, iyo gaariga dhexdiisa waxa ka dhex dhaca. Waxaan u maleynayaa hooyadaa in lagu dhex isticmaali jiray gaariga dhexdiisa, adna sidaas ku baratay wax walba. Sidaas ayay ugu jawaabtay. Jawaabtaas ayaana Raquel Bridson hadalhayn ka dhalisay, maadaama jawaab kulul ay tahay. Ninkana uu si fiican u karkaray, maadaama isaga uu si xun u aflagaadeeyay tirishadan, iyadana jawaabtiisii uu mudnaa ayay siisay. Laakiinse loogama baahnayn maadaama iyada tirisho caan ah ay ahayd inay jawaabtaas oo kaleeto ama hadalladaas oo kale ku hadasho. Midaas ayna hadalhaynta dhalisay sanadkan bilowgiisii. Raquel intaas kumaysan ekaan, iyadoo hadalkeedii sii wadata waxay tiri iyadoo weliba u jawaabaysa ninkaas: orod hooyadaa mar kale su'aashan weydii. Markaa magaalada aadayso, dharkaada hoose la'aantood miyaad aadaa? Ku dheh, ayay tiri hooyadaa. Noocaadoo kale ragga ceebeeyay, ayay tiri. Rag isku sheeg saqajaan ah ayaa tahay oo aan edeb lahayn. Sidaas ayay Raquel Bridson u raacisay iyadoo canaananaysa ninkii isku dayay inuu sharafkeedii meel kaga dhaco. Taageerayaasheeda qaar ka mid ah ayaa la yaabeen sida Raquel u hadlaysa iyadoo ah xidig caalami ah una jawaabaysa wiil ka mid ah ciyaalka xaafadda, misena aan habboonayn in loo jawaabo. Haddaba Raquel ayaa arrinkaasi ka hadashay, dadkii ku qabsadeen, waxayna ugu jawaabtay sida tan: ha ila yaabinoo waxaan ahay dumar, waa tuma gabadha oggolaanaysa in sidaa loo aflagaadeeyo haddana iska aamusayso. Maba ogi xilli aan xanaaqay. Hadda hadalkaygii qalad u aragteen ood qalad u fahamteen, iga raali noqda. gabar loo gafa ayaan ahay. Dadka qaar anshax ma lahan, waana run in loo jawaabo, wayna u qalmaan in loo jawaabo markay sidan oo kaleeto kugu xadgudbaan. Hadalkeedii Raquel Bridson intaas ay kusoo gabagabaysay. In muddo ayaa xidigtan hadalkeedii lagu wadwaday iyo weliba sawirradii laga qabtay oo sawirro aad u anshax xun ah, qaabka ay labis gaaban u wadatay iyo qaabka Photoshop loogu sii sameeyay, iyo qaabka ninka u aflagaadeeyay, iyo qaabka oraahyadeedii laiskugu xirxiray misena internetka iyo YouTube-ka meel walba lagu faafiyay ayaa hadalhayn weyn dhalisay. Bilowgii sanadkan, khaasatan bishii Maarso ilaa bishii Abriil intii u dhaxaysay ayay qisadani dhacday. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijyadeennii maanta aan idinkugu talagalnay. 3 qodob ayaan kaga hadalnay. Qodobka koowaad waxaan kaga hadalnay goosgooska labaad ee lagu soo bandhigay taxanaha Herjaya xalqadiisa 27 ee la daawan doono Sabtida soo socota Sabtideeda kale. Qodobka labaad waxaan kaga hadalnay laadarada caanka ee Casiiza ee taxanaha Herjaya laadarad ka ah.
macluumaad ku saabsan nolosheeda gaarka ayaan ka hadalnay. Qodobka saddexaad waxaan ka hadalnay atiirishada caanka ee Raquel Bernstein ee u dhaxaysa Bollywoodka iyo weliba Koonfur Hindiya, sidoo kalena caanka iyo nin hadda ka hor aflagaadiyey dhowr bil ka hor aflagaadiyey iyo jawaabtii kululeed ay siisay. Haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saaro, macluumaad walba oo xiiso leh halkan waa ka heli doontaa. Sidoo kaleetana wixii faalo ama comment hoos inoogu reeb. Caawana waxaan soo gudbin doonaa markay saacadu ku beegan tahay 3:00 habeenimo ama 9:00 habeenimo. waxaan idiin soo gudbin doonaa taxanayaashii aad inooga barateen habeenlaha ahaa Bayhatu iyo weliba Nagin 4. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.